بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan muslimiinta caalamka gaar ahaan muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Allah ayaa mahad iska leh inaan wada qaybsanno farxadda iyo hambaliyada ciida barakeysan ee Ciidul Adha oo astaan u ah isu naxariisashada ilaalinta danta guud iyo midnimada muslimiinta maalmahan barakeysan ee bisha Carafo waa maalmo ku weyn diinteenna iyo dhaqankeenna waa maalmo ay kumanaan muslimiin ah u jihaystaan sanad kasta gudashada waajibaadka xajka iyadoo naftooda dadkooda iyo dalkoodaba Allah uga baryaya naxariis barwaaqo iyo wanaag oo idil dhammaan xujaydeenna iyo inta kale ee gudanaysa waajibaadka xajka waxaan Allah uga baryanaa inuu ka aqbalo acmaashooda wanaagsan walaalayaal waxaan u dabaaldegaynaa ciidan iyadoo geesiyaasheenna ciidanka qalabka sida ay ka xoreynayaan maleeshiyaadka argixisada ah dagaano hor leh oo cadowgaasi ay ku dhibaateeyeen dadkeenna kana soo maleegaan dhagarta iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed sidaas awgeed waxaan hambalyo gaar ah aan u dirayaa halyeeyadeenna walaalayaal ugu dambeyntii waxaan alla ka baryanaa in ciidan ciideeda kale uu nagu gaarsiiyo barwaaqo midnimo horumar iyo amni buuxa sidoo kalena uu fadliga maalmahan uu Ilaahay ugu naxariisto dhammaan dadkeena naftooda u huray difaaca dalkooda ciidul mubaarak wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim waxaan guud ahaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed uga hambalyeynaya munaasabadda Ciidul Adha waxaan leeyahay Ilaahay ha idinkaga dhigo ciid khayraysan sanadkan sanadkiisa kale Ilaahay idinku gaarsiiyo bashbashi barwaaqo sidoo kale waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa inay isu duceeyaan iscafiyaan meel walba ay joogaan waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu dalkeena nooga dhigo barwaaqo iyo bashbash dadaalka dadka Soomaaliyeed ay ku jiraan inay halkaas ka sii wadaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh